maxay kula tahay in dhalinyaradan ay ku jajabeen? Asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Waa dhakhtarka lafaha isbitaalka Horseed Dr. Sayid Cumar oo maanta idiin soo gudbinaya wacyigelin kooban oo ku saabsan shilalka mootooyinka iyo jabka lafaha ee ka dhasha. Inkastoo madaxa iyo adimaha ay yihiin waxa ugu badan ee ka dhasha shil mooto marka uu dhaco, gaar ahaan mooto fekonka ayna tahay waxa ugu badan ee hadda dhalinyarada jabta ee isbitaalada la geeyo jabiya, haddana waxaa ka dhalan kara khatar qofkii nafsadiisa dhan ay soo wajahdo, sida inuu koomo u galo, inuu u dhinto, inuu u naafoobo iyo waxyaabo kaleeto. wax kasta waxaa ka wanaagsan ka hortag. Waxaan rabaa kow bulshada inaan la wadaago isbiidka mootooyinka oo la yareeyo, wadada oo dhinaca saxda ah laga maro, iyo taxadir guud oo la muujiyo inay tahay waxa ugu muhiimsan ee jabka, dhimashada, dhaawaca iyo halista qofka iyo qoyskiisaba soo wajahayso in la yareeyo ay tahay. Midda labaad, qofka marka uu jabo ma ahan lixdamaadkii iyo afartameeyadii iyo kontameeyadii xilligii bukaanka sariir intii la saaro qabdhaqameed ama jaasi intii muddo lagu xiro sariir uu u saarnaanayo. Caafimaadka horumar uu gaaray, jabka lafaha dhaadheer haddii bukaanka bire la geliyo, dadka badankooda waxaa loo ogol yahay maalinta ku xigto qaliinka qofkii inuu socon karo. Marka sariir uma baahna qofka inuu saarnaado asigoo maanta intii bire la geliyo ama la qalo biri subax socon kara. Socodku waa nolol. Ujeedada wacyigelintan waxay tahay in marka koowaad laga hortago, in marka labaad qofkii laa qadar Allahu ay wax gaaraan uu ogaado in uusan u baahnayn inuu u naafoobo, sariir u saarnaado, jilib adkaado, kala goys adkaado, kadibna ay disability ama dhibaato noloshiisa inta ka dhiman ee saameyso uma baahno. Waa lasoo celin karaa dhaqdhaqaaqa kala goyska, waa lasoo celin karaa shaqadii lafta. Waxyaabaha ugu fudud ee la sameyn karaan waxay tahay in biro ha noqoto kuwa lafta gudaheeda galaya ee intermedullary nailing haddii bukaanka lafta qaybteeda dhexe uu ka jaban yahay, ama ha ahaato birayaal kaleeto sida plate and screw, hadba qofka da'diisa iyo nuuciisa inta ay tahay meesha uu ka jabay ku xiran tahay in la geliyo qaliinka, kadibna immediately bukaanka loo bilaabo physiotherapy. Waxaan gabagabadii kusoo khatibaa ka hortagga ayaa ka muhiimsan daaweynta iyo qaliinkaba, sidaa daraadeed aan ka wada hortagno oo aan yarayno khatarta shilalka oo ugu horeyso in la yareeyo isbiidkii. Kusoo dhawaada qaybta lafaha isbitaalka Horseed.